رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayri oo go'ay ka saraakiisha ciidanka xoogga dalka kala hadlay xarunta wasaaradda difaaca dalka iyo taliska ciidanka xoogga iyo amarka intii la dardargeliyay qorshaha reednisowka ciidanka iyo dib u xoreeyowka deegaanada iyo ka sugan yihiin calooshoodan shaqaystayaasha arxan laabayaasha diin laabayaasha ee gumaadaha caruurta iyo hooyooyinka ummadda Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa ka nagay dawladda Soomaaliya intii garab teegantay ciidanka xoogga dalka iyo ona dhameystirahay dhammaan qalabka iyo baahanyiin si gacanta lahankanaga dalka oo dhan waana la anjar ficilada gurcan iyo wadaan kooxaha ka shaqeysadahay aragtida lahandhiiba ee beesada iyo dhaqaalaha badan iyo ka sameeyayaan dhiiga barnaamijyada kala dambeyn leh aan lagu shaqeyn dan gaar ah ama qolo gaar ah ay ku shaqeysan kuwa wax leynaya iyo kuwa badbaadinaya waa inay kala dhaqan duwan yihiin haddii aad ku dhaqantaan dhaqanka kuwa wax leynayo kale waxaa la hubaa inaadan wax badbaadinaynin waa inaad kala duwanaataan kuwana waa in laga cararaa waa kuwa wax leynaya kuwana waa in lagu soo cararaa waa kuwa wax badbaadinaya idinkoo rabaa in Soomaaliya ay ka faa'iideysato fursadaheeda mustaqbalka oo dhinac sharafeed iyo dhinac kheyraadba idinkoo raba dadka Soomaaliyeed in karaamadooda la ilaaliyo iyo waxa iska soo horjeeda taariikhda garab kala ka ah kuwii naloo sheegayay oo raba inay hooyooyinkeen laayaan inay laayaan caruurteen inay naga tirtiraan taariikhdan kuwaasoo iyagoo caruurta ay dhaleen u dirsaday iskoolada dibadda ku yaala iyagoo aabbayaalaha aan isu soo qarxin ka shaqaysta inay lacag ka sameeyaan ummadda Soomaaliyeed inay baabi'iyaan calooshoodu shaqaystayaal ku qaraabta diin oo sheegta urur diimeed oo culimadoo dhan ay noo sheegeen inay ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay intii kooxaha argixisada ah iyo ku been sheegeen diintan ogolayna intii caruur la dilo ama qarax la kahira waliba intaas ka daray hadii dhab ku ato diintiyo sheegadahayaan intii isqarxiyaan ama caruurtiyo qaraxan adeegsadaan ra'iisul wasaaraha ayaa ciidanka Soomaaliyeed ka amaanay doorasho iyo kaalinta iyo unka jaraan ilaalinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed maadaama yihiin ciidanka kaliya ee dhiig shooka biyaha ilaalinta calanka iyo ciidda Soomaaliyeed wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo munaasabada roogay yaa ra'iisul wasaaraha faray intii tayeenta ciidanka iyo isla xisaabtanka muhiimad gaar ah la siiyo usoo saraakiish kale ciidanka hanjeedi intii gudaan mas'uuliyadda ku saaran wiilasha iyo gabdhaha ciidanka ee go'aansadii intii dhiig shoon horaan badbaadinta qarannimada hamiin iyo geen teegan ha afjarowka cadowga ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan la dagaalamay cadow aan garanay oo nala dhashay oo gurigayga jooga oo cuntada nala cuna oo nala seexda oo nala shaqeeya aad markaas cadow nala Soomaali ah afkeena ku hadla masalan marka inaan u diyaar garowno ninka sanadka jecelahay waxtaalan ma laakiin saraakiishu waxa ku buurinaya in la timaadaan khidadii iyo arrimadii iyo qaabkii aan kula dagaalamay dadka aan ku fulino aad baan ku buurinaya waxaan leeyahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed Prime Ministerka wasiirka way ka go'an tahay daryeelka ciidankan ra'iisul wasaare saa la socota go'aanadii adiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la tayeeyo la dhiso loona diyaar garoobo sidii dalka loo xureyn lahaa runtii loogu xureyn lahaa cadowga Soomaaliyeed oo maanta aad dhageysanaysay heestii 14 October ee u qaaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin kooxda horseed ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed heestan markaa maqlay markii labaad waa runtii qiiro badan ay dhalisay waxaan nalaga rabaa marka sidii aan ugu dhaadhin lahayn ama qarankan ummadan Soomaaliyeed ee badbaadadeeda aan u badbaadin lahayn insha Allah ta'ala sida taliyaha uu sheegay taariikhda dib ugu malaabanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waqtigan cariiri waay mudane ra'iisul wasaare waxaan diyaar u nahay taladii ahayd soo jeediseen adiga iyo madaxweynaha oo ahayd in loo diyaar garoobo sidii loo horeyn lahaa dalkan qaybihiisa kala duwan sida hadda taliyaha uu sheegay insha Allah ta'ala Faisal Adow KGS TV Baydhabo